qodobkan waxaan rabaa inaan uga hadlo ayaha Somaliland 20 sano kadib sidee noqon doontaa laakiin maanta taariikhdu waa 1 January 2013 qodobka ugu horeeya waxay tahay dawladda Ingiriiska oo la saaxiiba Somaliland waxay muwaadiniinteeda ugu baaqi doontaa inay Somaliland ka soo baxaan waxayna uga digi doontaa inay tagaan malahaygu bishan January aan ku jirno ama February bartamaheeda ayaa dhawaaqa la maqli doonaa haddii la maqli waayana qodobkan wuxuu ka mid noqon doonaa kuwa la igu xasuusto qodobka labaad wuxuu yahay dawladda federaalka Soomaaliya ayana waa la aqoonsan doonaa oo inta ogaalkayga ah Mareykanka wuxuu casuumad u fidiyay madaxweynaha Soomaaliya asagana wuxuu tigi doonaa Mareykanka oo Barack Obama ayaa qaabili doono qodobka saddexaadna wuxuu yahay in malahayga bisha Maarso ayaa golaha ammaanka si rasmi ah waxa uu qaadi doonaa cunaqabataynta hubka Soomaaliya si ku meel gaar ah muddo dhan 1 sano saddexdaas qodobba waxay noqon doonaan kuwo ka mid ah aragtidii sanadka ee barnaamijkan laakiin marka hore aan ku hormaro ayaha Somaliland xaqii qaladkan ka soo galay Somaliland maxaa u sababa arrimahan Somaliland 20 sano aqoonsi ay raadinayso madax banaani ah Somaliland waxaa jirta maalmo ay geeska Afrika noqotay maamulka ama deegaanka ugu amaanka badan xilligii daahiriyarkaahin oo xukuumadda madaxweynaha ka ahaa ama talada hay Somaliland waxaa la ogaa amaanka heerka uu gaaray in xilligaas waxaan kamid ahaa dadka taageersan ee jecel habkii wax u socotay maxaa yeelay qabyaalad badani dad qabyaalada ka jirta bulshada dhexdeeda laakiin maamulku kuma kici jirin kuma dhiiri jirin qabyaalad maamulku kuma dhiiri jirin inuu mataqaanaa dadka beelaha isku dilo shalay kal shaar baraagaha weligood way jireen ilaa xilligii gumaysiga Ingiriiska qofna laguma dirin laakiin markuu qabsaday Siilaanyo waa ka reerkiisii u hiiliyay taangidii Somaliland lagu leeyahay dad shacab ah arintaasna waxay la kowsatay in dawladda Ingiriiska oo ah dawladda kaliya ee gacanta weysay Somaliland la dacweeyo mar haddii dadkaasi riidka la dhameeyay beelaha lagu duulay bahanta ah kubi ooda lagu duulay gudubirsiga lagu duulay haddana bahasha ay soo socotay aarariyada loo isticmaalay in dhalinyarada Arabka lagu dhameeyo qadiyad fogna ay jirtay oo hadda reer galbeedku ay go'aan ka qaateen Soomaaliya oo jiray labadaas arrimood oo iskaashaday Somaliland waxay ku qasbaysaa inay ka mid noqoto federaalka Soomaaliya wada hadallo hoose jiray oo madaxweynaha cusub uu ku ogolaaday inuu daaqilid siiyo Somaliland 10 sanadood ah kadibna shacabka Soomaaliya after loo qaaday inay go'i karto Soomaaliya si go'i karin laakiin hadda arrimahaasi waxa ka sii xoog badinaya oo Somaliland burburinaya waa saddex arrimood madaxweyne Siilaanyo oo rag beeshiisa ama rag groupkiisa ah ay wataan ganacsi ay rabaan in Soomaaliya kaga faa'iideystaan kuwaasoo madaxweynaha ku qalqaalanaya inuu qaato qadiyadan federaalka Soomaaliya beesha caalamka oo go'aansatay inay taageerto Soomaaliya gaar ahaan dawladaha reer galbeedka oo ka cabsi qaba in Shiinaha Hindiya iyo Malaysia ay shidaalka Soomaaliya ay qotaan iyo ka faa'iideysanaya jaaniskan qadiyad saddexaad oo ah dawladda Ingiriiska iyo dawladda Mareykanka oo qaati ka jooga sirdoonka Somaliland oo taladeeda ila wareegta al-shabaab
haddaan qodobkaas dul istaago dad baan laga yaabaa isweydiinayaan sidee al-shabaab ay somalilan kula wareegeen wasiirka arrimaha gudaha maxamed duur ninka la yidhaahdo sanadkii 2006 wuxuu la xiriiray ibraahin xaaji jaamac faqaani oo ah nin isaaqa oo habar awala oo saacad muuse oo nasmaaciil oo reer shirdoona ninkaasoo soomaali amerikaan ah ahna ninka ugu khatarta badan marka al-shabaab xataa axmed godle kasii tababar fiican kula jira ragga la raadinaya soomaaliga raadinaya wuu hambaliyey halgankiina maxayga 2006 ahayd 2010 ayuu marka la xiriiray email uu ku basaasayay ayuu u diray nin la dhihi jiray laba gumacle iyo nin la dhihi jiray axmed kaysi oo labadoo mooji laba gacan reer ah laakiin axmed kaysi wuxuu ahaa ida gale wuxuu sheegay nimanka in double agency yihiin in lagu xiray Soomaaliya in lagu xiray mandaarin ku jireen kadib Mareykanka iyo Ingiriiska u yimaadeen xukuumadda maamulka daahriyaale inay ku dhaheen nimanka waa double agency annagana la shaqeeyaan marka saas darteed noo sii daaya nimanka maanta lagu sameeyay follow up saas ayaan labada nin lagu diray oo labada nin saaqay ahaayeen axmed godin iyo groupkooda way direen waana haynaa emailkaas oo duur diray emailkaas official ka dhex diray 2012 bishii December sidoo kale haddana duur isticmaalay email kale ayuu ibraahin la xiriiray ibraahin faqaani wuxuuna kala hadlay oo u sharaxay meesha ay marayaan ragga wuxuu ku yiri dhalinyarta nooga jirtaahay ama dhalinyartiinaan beesha saaq ee al-shabaab ka tirsan waxaad soo maraysaan halkaas marka wuxuu gudbinayay dambaal uu ka wada wasiirka madaxtooyada wasiirka dowladda hawada iyo rag noocaasa ayadana email kale xiriirta emailkiisa ma ahayn laakiin wuxuu ahaa email uu ka furtay isla IP address-ka uu isticmaalayay emailka uu dur isticmaalayay waxaa xigtay wasiirka madaxtooyada xisn xaaji cali weligii wuxuu ahaa al-shabaab waa kana maamulka daahriyaal uu soo xiray la ogaa muddo dheerna nimankaas ayuu la lahaa wiil uu dhalay ayaa jiray xisn xaaji cali kii cabdiraxmaan garweyne oo shirkadda habshil ka shaqeeya la yidhaahdo cabdiraxmaan xaaji cali wiil uu dhalay ayaa jiray oo al-shabaab ahaa oo weliba ahaa ragga dee aadka ugu dhowdhow axmed godine wuxuu u ahaa bodyguard gaarka wuxuu ahaa nin dhihi jiray nuur faruur oo habar jeclo ah ayuu u ahaa bodyguard ninkaasi wuu soo baxay ninkaasi however hargeysuu yimid markuu galabtoo kale diyaaradda soo degay hargeysa yimid subaxdii meydkiisa waxaa laga helay guriga xisi ee hargeysa laga helay meydkiisa arrinta saxaafadda waa loo diiday ka hadlaan waxayna ahayd xilli weliba xasaasiyada taagneyd ninkaana waxaa la tuhunsan yahay inuu macluumaad inuu sii reer galbeedka awgeed loo dilay maadaama la ogaa in uu wiilka yar ay rag la dhiilgareeyeen oo qorshe loogu yeero uu jiray xisn xaaji cali wuxuu xiriir toosa ula lahaa nin la yidhaahdo cabdulaahi maxamed ducaale cabdulaahi gaab oo isagana ahaa carab hooyadiin ay habar yunis tahay waxaa kale oo si toos macluumaadka ay u kala qaataan inta aan ogahay ama aan caddayn hayo wiilka la yidhaahdo mukhtaar cabdi godane axmed godane had maqashaan wuxuu isticmaalaa mukhtaar abu subayr mukhtaar waxaa weeye waa walaalkii oo hadda hargeysa jooga waxaa leedaha abu subayr hadda maqashana waa wiilkiisa u dhalay axmed godane oo isagana dubay jooga wuxuu degan yahay imaaraadku uu degan yahay oo hooyadii sheekh cabdiraxmaan baraawo odan dhihi jira la naxariistee oo shaqaalaha ayuu gabar ay dhashay gabar odan ninka dhalay ayuu qaba axmed godane oo anigu aan aqaano
idina ilma caruurta waxay ku haystaa Dubai marka magaca aad maqlaysaan ee ah Mukhtaar Abu Subayr waxa weeye Mukhtaar waa walaalkii oo hadda Hargeysa jooga oo xirsi oo la kulmay Mukhtaar Cabdi Godane Abu Subayrna waa wiilkiisii uu dhalay oo curadkiisa ah marka ninka uu la xiriiri jiray wuxuu kale la xiriiri jiray wiil uu dhalay wasiirka diinta oo qaafta Soomaaliland isagana Arab ah oo leeyahay Mustafa Qaliil Cabdullaahi Mustafa la soo furdaamiyay Buntland soo maray Buntland laga soo kaxeeyay inta waa la socdo informationkiisa waa daba joogay hadda Hargeysa jooga Mukhtaar Cabdi Godane iyo ninka la yiraahdo Mustafa Qaliil Cabdullaahi labadoodaba sagaalaatanka bisha ayay gaari dhexdiisa Hargeysa meel duleedkeeda ah kula kulmeen oo kula hadleen Xirsi Xaaji Cali wasiirka madaxtooyada Xirsi maxay ka wada hadleen lama ogaan karo gaari dhexdiisa ahayd laakiin intaan ogahay nimanka arrimaha kulugta la reer galbeedka ama dawladda Ingiriiska sirdoonkooda arintaasi way ka war heleen waxaana qiyaasayaa inay ugu weyn tahay qodobada Somaliland waxyaalaha qasbi doona inuu Ingiriiska Somaliland muwaadiniinta way uga digo inay tagaan kuwa joogan ugu baaqay inay ka soo baxaan Mareykan oo ku raaci doono maxay la Mareykanka iyo Ingiriiska horta waa saaxiib siyaasadeed marka maadaama uu Ingiriiska saaxiib la yahay Somaliland uu gumaysan jiray macnaha Mareykan kuma degdegayo inuu isaga ku hormaro inuu ku baaqo in laga soo baxo Somaliland muwaadiniinta uu uga digo Ingiriiska ku hormari doono intaan hay macluumaad kadibna Mareykanka ku xigi doono marka inta dhacdo muddo dheer dawladda Itoobiya ilaahay kuma soo diiday iyo Ingiriiska iyo Mareykanka waxay Somaliland ama Axmed Sinaa caad ku saareen inuu 4 nin xil ka qaado 4 nin al-shabaab ah waa Maxamed Nuur Caraale Duur oo saaqo habar Yoonisa ninka la Xirsi Xaaji Cali oo isaaqa oo habar jecla ah ninka la Maxamed Xaashi oo Allah naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim oo u yaqaanay Usaamaha Somaliland Usaam bilaadka Somaliland u yaqaanay isna habar jecla ah iyo Qaliil Cabdullaahi wasiirka diinta oo qafta oo isagana Arab ah 4 nin ay caas u saaray ma ogaan karo marka Ingiriiska oo go'aan qaato in Somaliland oo muwaadiniintiisa uu uga digo Mareykanka oo ku raaco falcelinta Somaliland waxay noqon doonto laakiin marka la qiimeeyay siyaasadda tahay waxay sameeyaan markii saas kale soo dhaco kadib reer galbeedku waxay maalmo kululayn ah kadib u diraan casuumaad markaas maamulada ama dadka ay cooperation kala sameeyaan marka waa markii la kulmana kolba way u bandhigi doonaan laakiin dhinaca kale markaan waxay ka tuso wasiirkii difaaca Mareykanka William Cohen dhihi jiray xilligii Clinton wasiirka difaaca ahaa ayaa wuxuu sameeyay Cohen Group oo campaign ah kuwa ololeeya marka Cohen Group kaasna waxa uu ka helayaa garab shirkadihii shidaalka Mareykanka iyo Ingiriiskii oo reer Soomaaliya mataqaashiisa la geli jiray bariga hore marka wuxuu Cohen Group ka ay u ololeynayaan in Soomaaliya loo dowlad federal Soomaaliya loo aqoonsado dowlad federaal ah waxay u ololeynayaan in Somaliland ay aqbasho federaalka inay qaato maxaa yeelay heshiis marka la gelayo oo shirkadaha shidaalka heshiiska ay galayaan waxay ku qasban yihiin in heshiiska saxiix galo dowlad aan la aqoonsanayna lama geli karaan inta aan ogahay 3 qodob ayaa Mareykanka ku xiri doonaa madaxweynaha Soomaaliya mataqaana waa in mataqaana Mareykanka hantidii ka tiila Soomaaliya iyo deemihii lagu lahaa Soomaaliya uu sidoodu yahay
oo yahay heshiisyo la geliyay dowladda Soomaaliya ama kuwii siyaadba ama dowladda siyaadba ama kuwii ka horreeyay in shirkadaha Mareykanka heshiisyadii ay la galeen dowladda Soomaaliya ee xilliga siyaadba wixii ka horreeyay uu sidoodii yahay iyo in dowladda Soomaaliya ay wax la yaqaan madaxbannaanida ama xorriyadda qowlka ay ilaaliso ay ballan qaado saddexdaas qodob saddexda qodobna iska taqaana hadda nin ku cusub xilka oo markii ugu horeysay waliba aan wasiir soo noqon de runtii wuu aqbali doonaa in la aqbalna wayba tahayba oo khayraadka Soomaaliya naga badan laakiin hal qodob ayaa ka dhici kara halkaas qodobkaas wuxuu yahay shirkadaha shidaalka waxay sameeyaan qiyaano ganacsi ama qiyaan dhaqaale waxay qodaan ceel qodayaan markay ceelka qodaan shidaal ka helayaan kadib ceelka weydadayaan waxay leeyihiin ceelkan shidaal lagama helin ceelkan shidaal lagama helin way baxayaan shirkadaha kale tagayaan waxay leeyihiin ceelkan waxa iga baxay 30 milyan shidaal ayaa laga helay 60 milyan halkaas ay saasi faa'iido u raadinayaan marka dowladdu hadii madaxweynuhu tago Mareykanka kale to lagu casuumay dhawaane oo tago waxa uu qali fiicnaan lahayd inuu ku xiro shuruud heshiiska ta ku saabsan shirkadaha oo anaga in la qoto dhulkeena shidaal laga qoto waa ogolnahay laakiin shirkadda qoto dhulka oo ceelka qodo haddii ka weyso shidaal waa inay ceelkaas ku soo celisaa dowladda oo hanti qaran noqdo haddii saas la yiraahdo waxa meesha ka baxayo in ceelkii shidaal laga helay yiraahdo shidaal lagama helin shirkadda markaa ay ku qasban shidaalka in soo saarto saas waxaan u leeyahay waxaan qabaa tuhun yar oo la xiriira reer galbeedku dagaalkooda ugu weyn wuxuu yahay in shidaalka Soomaaliya ay soo qodaan Shiinayska iyo Hindiya iyo Malaysia marka waxay doonayaan inay monopoly ku sii qabsadaan shidaalkii de Soomaalida danta ugu ma jirto shidaalkii in monopoly la iskaga qabsado oo iska didnaadee in shidaalka la soo saaro ay muhiimad tahay qodobka hubka cunaqabateed hubka laga qaado Soomaaliya laftiisana waa go'aan mataqaanaa ka go'an reer galbeedka laakiin ujeedada ma garan karo ujeedada waxay tahay in hubkii gacanta la isu geliyo oo dagaal dhaco oo la yiraahdo shirkadaha shidaalka yiraahdaan Soomaaliya ma qodi karna waa dagaal ka socdo taama ogaa karo haddaan ku soo laabto Somaliland waxay ku dambeyn doontaa Somaliland waxay ku dambeyn doontaa Ahmed Siilaanyo wuxuu qaadan doonaa ra'iisul wasaare arrinta waxa shaqeynaysa dowladda Ingiriiska shirka loo qaban doono bilaha soo socda in ma qan may noqon doonto in may noqon tahay salaaka ma ogaamid tahay ayaa arrintaasi ma taqaanaa loo hal doona ka horna bishan January ayaan u maraynaya inay tahay ayaa loo mataqaanaa ama February ayaa madaxweynaha Soomaaliya David Cameron casuumi doonaa kadibna kaligii ayaa la kulmi doonaa intaan xog ku hayo qof kale in la kulmo David Cameron ma ogolaan doono wuxuuna kala hadli doonaa in uu siiyo beesha qof ka soo jeeda ra'iisul wasaare talafada khilaafka dhala kara maxaa yeelay ra'iisul wasaarada waxa ah nin u dhashay beesha daarood taana khilaafa ka imaan kara laakiin dibka ugu badan wuxuu ka dhici doonaa Siilaanyo iyo kooxdiisa waxay noqon doonaan kuwa xigsada mar walba federaalka dowladda federaalka ayaga in la hadla un bay ogolaan doonaan in cid kale la hadasha oo qof kala tagta xamar ma ogolaan doonaan inta aan ogaa waa intaa wayna qaadan doonaan laakiin maxaa ka dhici doona qaashada si dadku ku aqbali karaan Somaliland shacabka Somaliland xilligii aan Cabdiqaasim la socday aan tagnay Hargeysa doorashada carta ka hor maxamed xaaji ibraahim ayaa casuumay Cabdiqaasim Xasan lacag Suuriya oo $100,000 uu soo siiyay heshiisay gaaleen jaraal galaal la socday bariga Cabdiqaasim waxa lagu heshiiyay in meesha uu tago Cabdiqaasim doorashada hadii uu galo oo ra'iisul wasaare maxamed xaaji ibraahim gaal siiyo oo isaaq ku qaataan sanad dawlad Soomaaliyeed dib loogu dhiso
عبد القاسم بلنتا كبحي markuu balanta Cabdiqaasin ka baxay wuxuu siiyay cala qalif kaleyr taas waxay cadeynaysaa macnaha siyaasiyiinta beesha isaaqa ayagu ma badankood ma qabaan qadiidan in Soomaaliya kala go'do laakiin waa wax ay geliyeen shacabkii marka shacabkii si looga saaraya waa marka hadda shacabku waxa looga saaraya in beelbeel loo kala xiro in shirbeelada la soo celiyo in mataqaana rabshado badan la abuuro sidaas looga saaraya waatan hadda marka uu wado Silaanyo tan kale waxay tahay dagaal ma ka dhici kara Soomaaliland taas والله بعد قال كده إنه كفرت كجوري حق جوري. شرط واحد تاي ممكن لذا كان حاجز كإساقة وحلول لاي أو كمان كل جد لي سومالوين النهاية يوم نقون كرتان. مركب ما أنت بيش أنا هرجع على السلاح كده شكو ما قص بكرتو كان حاجزكو إن أي قعتان قد يتسو مالوين ومدي كران أنا قاعد كده قايله. تعمل كده قاعد كده لضونه. تلا بعد حوي قبيل كان لي عربك السوماليland وقبيل أذك رنتي أنت أنا جدي تعرقها هيستو إنك استوني أنا هاي هذا ربوك الجرم حفارح غيديد قري أمر الله شكستي يرانتي دوحو إيش جاي إن بريجي وبرجلتك وتوبي سومري نمك بودي جار كيسة إلى يا هاين عرب مركوا هالك لو حسوسته لحلقة كل جوكتان دجال لا تكو هذا هدي اللي قلت الذين جو يلوجه من ماشي كبر سداسة مركا نمك أنا حقصر ما قاعد دونا هدو حلو سمي وحكى له أي قاعد متقنا وقصي مدوب دونان نكستو دي فلسفية ده لو يقال إن ما كان هذا يكون شقينا يعني رأسي لا يعتى إن العقب بحيان ويكرف فران ضدك حدنا عرب كحي أركان وقال حاجز كي أو أنا لهين نمك عرب محل دليا أو صار الله وقال عروضه وهبرا وشو عن لهين وإساق يقولوا جوحي بريجي هرب هي للسنة ثرك عبرج على أو هي للسن ما أنتنا أنا إذن هي اللي منه تاس أمرك وحي سميت دون تاني عرب كنقدان ضد عرق أو رنتي سكو حرن ينقضونا يعني وحسب مهمة إن الشباب كي كصوب بعد كفرته إما Somaliland بحن إني وحي دونان إكسامين كران waxaa kaloo muhiim dadku inay ogaadaan in reer galbeedku maanta ay ka go'an tahay in Somaliland ay federal ka qaadato wayna qaadanaysaa taas shak kuma jiro shakana kuma jiro haddii arrintaas ay dhici weysana waxay noqon doontaa qodobada dahir cali lagu xasuusto doono mataqaana xoogaalnimadiisa lagu qiimeyn doono xoogaalnimadiisa aniga waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay dhahaan daahir markastaba waa mucaarad ama wax buu mataqaanaa inay dhaliilaan laakiin aniga waxaan lahaa ama waxaan leeyahay aragti shakhsiya waxba iga go'an bari baan hogaamiye kooxajida yaan ka hadli jiray dhibaatada ay dadka dalka ku wadaan dadka dad badan maadaama hogaamiye kooxda qabiile ay matalayeen dad badan ayaa igu nacay anigu waa iska waday meelaan gaarsiiyey shacabkii ku kacay marka shacabka ay ku kaceen waa ka haray waxa ay waxay takubi maxaakiimta iyo al-shabaab waan ka hadli jiray khalista al-shabaab ka hadli jiray dadka dhaw ay naceen waxa la dhihi jiray waa gaal waxa la dhihi jiray waa basaas waxa la dhihi jiray waa lashqaat wax walba lagu sheegi jiray waxa dhabar adeegay ilaa ma ay uga sabteen aan qaxooti noqdo on dalka uga soo baxo laakiin aniga shaqadeeda waa wata waxaad maqlayseen faashon garo wuxuu dhihi jiray muqtaar rabo wuxuu dhihi jiray axmed gudan wuxuu dhihi jiray waxa uma diirin al-shabaab waa dadku waxay ii haysteen inaan ahnin waaran هيجري وليش إسلام كأ مجاهدين تام حد كربتها لكن أنا إني اسم مجاهدين هاي منافقين ويمو قتي وأنا كهذا أركتي ده لكن أنا ما هي تلعق عن ذاتي كل الوش عنده كاري شع إلى يقول تاجر مركا ذاتي لدباتين أنا واحد كل جار ما هيست مركا أنا وحين قلت كلي واحد صدقنا عم بحسك على إن وحي أنقره والشيء وحي دباتها ذلك صعد وأنا ودني ما الشيء صومالي ما الشيء عرفت اللي يرني ما الشيء أنا قلت إذا مسكت إذا عن ذاتك أهرو وأنا قف فائدة أن على الشباب أنا قل كلي كوه أنا قل هذا كلي كوه وحتى
ويهباري نيك هذا مدحبنا صلى الله عليه وسلم أحمد كان نقضي يهباري يدي محكرة إسلامك أنا كل كوا يوم مدحوين نقضي وحا يصوب حقيلدان كوح قيلدان يا صوب حضي كوان كي دادكو قيلدان ووري بروديق قصار هسها عرفتي بالقرير maalintaas shacabka arkeen marka waxay yihiin 3 December markii shaam qarax ka dhacay arkeen anaguna hambareer ka jiitay mar hadday arkeen waa ka sii jeestay waxaan u jeestay Somaliland markuu aan siraaya la doorta la koobsaday waxaan soo dhaafay bariga Cabdullaahi Yusuf waxaan ahaa ninkii qoray Cabdullaahi Yusuf madaxweyne Soomaaliyeed bismid bajarteen أنا وعوان كاس وطمر كعبد الله يسوع دورتي ما أنت أرد دورشة وكوجول يستعبد الله يسوع حن قريب كوان له يقول أنا كفرت السوري واللي بسنة هذا الضوء بسنة تاكل من الله هاي لكن أنت هنتا مبانك هاللاي مركي ردورتنا وحاولت انتركونتيننتال إنت سوقي مي إن عبد الله دير حكينه أها مجرتين وأها ظاهر من أجسامها كأها متقنا مدتوية إن قرش لا جوتي لا طريقها وها متقنا يسأل السري بري أفيان وها إنت سوف يشون إنت كبشين السؤال عن دبت صباح وحقيقي هريمد إن أنجع الله جيس يقول عبد الله السعيد جن بقر وح عبد الله جن بقر ودي وعبد الله اسم مدحوين الصومالية ذا مسوا من مجرتين wuxuu igu yiri warniyo waad amaanaysaa ninka dadka madaxweyne ma jirteen aan waxaan ku dhihi lahaa ciwaanka waxaad ka dhigataa Cabdullaahi Yusuf madaxweyne reer maxad anigu weligayba ka soo horjeeday marka Ethiopian hala keeno Cabdullaahi keensado ama inta Cabdullaahi Yusuf waxaan arkay inuu dadkii qabiil ku baabi'inayo hadda waxaan u jeeday Somaliland u jeestay siilay maalinta la doortaan la koobsaday Somaliland inaan balaleelheeda waayo amaanta iga fiican la helaa hadii wanaag u jirnaa aan sheeg laakiin inta badan waxaan ahay inaan fiiriyo dhaliilaha inaan raadiyo hebela bamba ku qaraxday iyo ima noqonaysan waxay noqonayo war maxaa qarsoon ay shacabkan kaaga baahan yihiin daahiro maanta waxaan raadinayaa waxa weey maxaa qarsoon ay shacabkan u baahan yihiin waayahay siilaa u jees siilaa aragteedii Somaliland waa wada beriba waxaa jirtay shirkadahan ka hadli jiray xawaaladaha Soomaalida yaan ka hadli jiray waxaan ka hadli jiray xawaalada Qaran Express waxaan dhihi jiray war qaran hala iska ilaaliyo waxaan dhihi jiray war qaran waa maafiyo war qaran waa argagixiso waa la dacway loo raalay qabsaday dadkii Soomaalida waa ugu naceen islaamihii iyo dadkii qurbo joogta ah ee ku darsaday $20,000 waa naceen waxaan dhihi jiray lacagtina kala baxay nimankan waa maafiyaha aamin way xoogaanimadeedan yaan matqana ka hadlay waxa la yiri inuu daahir cala soo baadisto nimanka la caaw ka rabaa waa soo wada waa u soo dhabalay runtii nimanka niman aan wada dhalna way ninka meesha istaba isku reeraan banahayba ma fahamtay hasa yeeshay dadku umar u digay dadkan la hawar wuxuuna matqana haysaga qasaarna meeshan de maanta maxaa dhacay dadkii xoolahooda lama dhicin أو قرن ما أنا توجها أنا واقف صف فديا أنا واقف حول ما جستا ولي أنت النورا ما أنت هدي لصومره ميرول بالداهر على السو ما أنت وحن كلية لا أنت لاك واحد هاي لما أركاه كعب سنة $100 رأي قال الداهر على السو ولي أنت قفت يديك قاتل جت كمشي مريض هبل واحد داهر على السو قام لكن قرن واقع سوى بتقنا نمك قرن هذا مقلم حالي وأنا ما كنت كمساكين تا war magaca uu haraya war ogaada dadka ganacsiga jiladiin dadka masaakiinta war hooyooyinka kuwa isleedin Yurub joogan oo haday lacagtii kuma dacway kara war wax iska siiyay taasi waa taas dahabshiil aan daba jooga dahabshiil waa halnin war ninkaas haduu bari ku yahay waxa aniga wax ugu maleeyay dadka wax u dhibtay ninka ana wiilka aniga arkay Cabdirashiid ee muqaylka ah محكمة الصلاة فلسطين الله وجه تيسد حدنا هذا إنه صعته وروح عليه إن من كان ما أهن جناح صدق إن من كان سياسة الجلال وروح هذا الشركات جناح سياسة كشنا حارس تيدي لذا
waxaan isku qabanna qodobada waxaa ka mid ahaa Axmed Siiraanyo ay taageeraan waa kan Faysal Dhowraa markaan dan xaq waraystay uu wana siin lacag war ma beena war waa kan aan hay waraaqihii Axmed Godone Ibrahim Faqaani kulli dadkii akoonada u fureen ee lacagta u hayeen waa kan war waa kan aan ogahay service inay xireen al-shabaab war haddii nimanku ay yihiin ma fiican dhahabshiin